labada taasna waa raacinayna waxa muhiim ah flash ina haysatid computerkaad gelinaysaa waxay leedahay position laga geliyo oo labada dhinac ee computerka kamid ah si automatic halkan wuxuu ka soo saaray USB drive detected waxa uu helay computerkaaga oo soo galay ajlad marka waxaan soo fureynaa ajladii already si automatic soo furtay waatana dhamaan waxa halka ka muuqda waa documents waxaan rabaa inaan mid kamid ah banaanka u geeyo kadibna ku soo cesho iyo inaan kaba saaraba gabi ahaanba ka tuuro oo ajladeeda ka saaro laba siyaaboodba marka waa u geen karaa for example halkan waxa yaala movie-gan waa 1 GB click baan siiyay dan waxaan dhihi karaa right click copy waa markaan raba ajlada inuu ii yaalo right click copy baan idin ama control plus C sida u taqaanid hadba control plus C right click copy waxaan geynayaa marka desktop-ka si aad ila aragtaan halkaas aan dhigayaa right click baan paste waxa aragtaan already ajladii inaan ka soo copy gareeyay document nooc doona ha ahaado ama filin ha ahaado ama document caadi ha ahaado ama sawir ha ahaado whatever nooc doonaba ha ahaadee waxa soo ka soo copy gareynaysaa flashka waxa dhigaysaa goob kale flashka marka ka soo copy-yeynayso waxa leedahay shayga dooranaysaa click then right click baa siinaysaa copy then goobtii aad rabtay baa tagaysaa right click baa siinaysaa paste ama control plus V oo u dhigmata paste control C na waxa ahayd copy control V na waxa weeye paste oo ii dhig halkan now okay waxaan arki doonaa meeshii uu dhigay waa ka filinkii halkan u dhigay good filinkan marka total waxaan rabaa inaan ka soo remove gareeyo ajlada waa kana ajladii ku jira waa ka delete gareynaya delete ha iga tuur uu ka tuuray dan say dib baan ugu soo noqday waa kana filinkii desktop-ku ii saarnaa waxaan rabaa inaan dib ugu cesho flashka maxaa ii furan oo ii banaan laba wado wadada koowaad waxa waaye right click inaan siiyo copy or ama inaan iraahdo control plus C oo ah u dhigmata copy waa marka halkan joogo right click copy ama control plus C dan waxaan tagayaa flashkii waxaan dhahayaa control plus V oo ah halkan ii dhig ama right click baan leeyahay paste wata ama control V hadda control V baan isticmaalayaa controlka ayaan hayaa V baan leeyahay ii dhex dhig waxaad aragtaan cursor-kayga isagoo aan right click siin inaan si automatic ah u soo dhexgeliyay documentigii flashkii waxaad ogaan doontaan marka uu dhamaado flashka faylka ku transfer garoobaya aan la socono balan daawano size-kiisa tiro badan oo hadda jaa already wuxuu marayaa 800 iyo xoogaa 1 GB xoogaa buu ahaa xawaaraha uu tuurayaa secondkii speedka computerka uu tuurayaa waa 5 ilaa 7 ilaa 6 inta u dhaxaysa megabyte per second waa xawaaraha uu computerku ku tuurayo ku copy gareyn karo data waa MB ma aha KB ma aha halkii ilbiriqsi waxa uu tuurayaa 6 ilaa 7 inta u dhaxaysa megabyte macnaha awoodda computerka ay ku xiran tahay RAM-ka waa aragtaan si isu bedbedelayso meeshaan cursor-ka saarayo ayaa waxa kaaga muuqanaysa xawaaraha uu ku dhigay for example 7 6 6 8 waa speedka xawaaraha uu computerku
baasti gareynayo ama uu ku dhigayo wixii aan soo raray. Good. Okay. casharkii waa kana documentiga aan soo qaadnay flashka aan soo dhex dhignay